بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow halkani waa qoraxay web tv xaruntiisa dalka Australia oo alaaba naga daawataan shabakada caalamiga ah ee www.qoraxay.com daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij dooda oo aan u qabanay dhalinyaro kala duwan oo ku kala sugan dalka Saudi Arabia iyo dalka Kenya waxaa daawadayaal la socotaan muddooyinkii ugu dambeeyay in uu dalka Ethiopia ka socdo kacdoon 3 bilood kor u dhaafay oo ay wado qowmiyadda Oromia kacdoonkaas oo dhiig badan ku daatay waxaan la soconaa dalka Ethiopia inuu yahay dal ballaaran oo ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan qowmiyadaha kala duwan ay maanta gacanta ku hayso maamuleysana qowmiyadda Tigreega oo ah qowmiyadda kamid ah qowmiyadaha ugu tirada yar dalka Ethiopia waxaa qowmiyadda Tigreega oo muddo dheer u soo dagaalamaysay xoreynta Tigreenya waxaa sanadkii 1991 burburkii Mengistu Haile Mariam lagu wareejiyay dalkaas in ay xukumaan min maalinkii ay xukunka Tigreegu la wareegeen ilaa maanta waxaa ka jira dalka Ethiopia dhibaatooyin aad u fara badan oo qowmiyad walba godkeeda biyo ugu galeen waxaan la soconaa qowmiyadda Oromia iyo qowmiyadda Soomaaliyeed in ay yihiin qowmiyadaha dhibaatooyinka ugu badani uu ka soo gaadhay haddaba muddo hadda laga jooga 3 bilood ayay qowmiyadda Oromia waxa ay bilowday kacdoon ay ku diidan tahay caburinta dilka dhaca kufsiga barakicinta iyo dhulboobka ay qowmiyadda Tigreegu wado haddaba doodeenan maanta aan u qabanay dhalinyaradani waxa ay tahay saameynta ay ku yeelan karto qowmiyadda TPLF ee xukunta dalka Ethiopia kacdoonka ay wado qowmiyadda Oromia daawadayaal barnaamijkeenan oo ay ka qayb qaadanayaan dhalinyaro 9 oo ku kala sugan dalka Kenya iyo dalka Saudi Arabia waxaan qoraxay web tv aan hor dhignay bal inay aragtiyadooda aan wax ka weydiino bal sida ay u arkaan kacdoonkaas haddaba waxaa doodeenan maanta ka qayb qaadanaya Abdullahi Bashiir Sheekh Abdullahi oo ah arday ku sugan deegaanka Dadaab ee dalka Kenya waxa kale oo ka qayb qaadanaya Sheekh Mustafa Khaliif oo ah bare cilmiga diinta Islaamka kuna sugan magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia waxa doodeenan daawadayaal ka qayb qaadanaya isna Bashiir Sheekh Abdullahi oo ah aqoonyahan u dhashay Soomaalida Ogaadeniya oo ku sugan dalka Kenya waxa sidoo kale ka qayb qaadanaya Maxamed Aadan oo ah waxaa sidoo kale daawadayaal ka qayb qaadanaya Maxamed Aadan oo isna ku sugan magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya Abwaan Cabdirashiid Gurmad Qaran oo isna ku sugan magaalada Dadaab ama deegaanka Dadaab ee dalka Kenya waxaa isna ka qayb qaadanaya Cabdiqaadir Dhiqle oo ku sugan dalka Saudi Arabia sidoo kale Xasan Cabdullaahi Daahir oo isna ku sugan magaalada Ifo ee dalka Kenya waxaa sidoo kale daawadayaal ka qayb qaadanaya Liibaan Miir Cabdi oo ah qora ama suxufi marar badan wax ka qora geeska Afrika oo ku sugan isna dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ugu dambeyn doodeenan maanta waxaa ka qayb qaadanaya Abdi Maxamed oo ku magac dheer Abdi Gacan oo isna ku sugan dalka Saudi Arabia daawadayaal dhamaantii soo dhawaada waxa dooda qaybinaya anigu ah Maxamed Ibrahim waxaan ku horeysiinaynaa bal inaan aragtidiisa wax ka weydiino Abdullahi Bashiir Sheekh Abdullahi ku soo dhawow aragtidaada waxaan la soconaa kacdoonka ka socda dalka Ethiopia ee wada qowmiyadda Oromia kacdoonkaas bal sidoo u aragtaa saameynta uu ku yeelan karo xukuumadda TPLF waad mahadsantahay marka koobaad mudane Maxamed marka labaad waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan bulshada reer Ogaadeniya meel kasta ay joogaan khaasatan bahda saxaafadda gaar ahaan qoraxay web tv aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa intaa kadib haddaan kusoo dhawaado su'aashaada koobaad waxaan u arkaa kacdoonka ka jira gudaha Ethiopia guud ahaan inuu yahay mid aad iyo aad loo siin karo ahmiyad waxaan u arkaa inuu yahay midka Ethiopia ku kala tegayd inuu yahay waxaan u arkaa in runtii ay Ethiopia noqon doonto sidii ay ka damacsaneyd Soomaaliya ama wadamada Islaamka ee ay saameynta ku yeelanayso waxaan u arkaa kale shacabka
ay gumaysato Ethiopia ee hadda kacdoonka wada waxaan isleeyahay waa midii ay kaga faa'iideysan lahaayeen fursadooda Ethiopia ay ku kala dhaqaaqi lahayd waxaan u arkaa runtii xisbiga TLF ee garta daran sida gardaradana ku haysta xukunka wadanka Ethiopia iskuna dayay mar walba inay dadka caburiyaan waxaan isleeyahay mudaharaadkan ama kacdoonkan waa midkii talada ka gacantooda ka bixin lahaa gacantana u gelin lahaa shacabka xaqraadiska ah ee xuquuqdooda ay ku heli lahaayeen waxaan isleeyahay shacabku way ka faa'iideysan doonaan sida ay hadda u bilaabeen in ay sii laba jibaaraan waan farayaa arinta kale maadaama waxay kaga laabtay arinta TPLF waxaan isleeyahay TPLF sida ay iyadu hamiyeyso ama ay maagan tahay kacdoonkan wuxuu ka dhigi karaa siday rabtay si aan ahayn waa midkan ku kala tagi lahayd baan aaminsanahay waa mahadsantahay aad baad mahadsantahay waxaan u gudbaynaa dhanka kale sheekh Mustafa Khaliif oo ah bare cilmiga diinta islaamka oo ku sugan magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia ee ku soo dhawow aqoon-yahan ama bara sidoo u aragtaa kacdoonka Ethiopia ee lagu wado ee ay wado qoomiyadda Oromia saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa xukuumadda TPLF السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا إدين مهد علينا يا بهذا ميديا قرحي أديات بان إدين كم مهد علينا يا مركا هراء أنا جو فرصة كفاية سنة يا وحن سلام يا شعبنا هريرو قاعدين يا دليل الجبد وحن سجار سلام يا عيد كشمال ودنا حرين تقاعدين يا جدها قاعدين يا كسوغان يهو وذنا كشمال ودنا حرين تقاعدين يا ملاحظة ولا محمد هذا أقول لك الله سؤال سنة ويديسي وقول سوهيتي إن أورميا أي كعضان أي سمايسو وإثيوبيا أيدي نحن أي سمايسو أورميا ما دام إتهاي قومية إثيوبيا أبدا وإثيوبيا كانوا يجرتين سنتين أورميا مركلة ما أردت لقى رأيه مرة دي أورميا دي أي مانت إثيوبيا كل بلا هاي قومية إثيوبيا وحلوق من سنتين أورميا ما أنت وحويان تاس ودكي TPLF وسود دقيقي وأقول ما تيجي بألف وسي ترتا قومية أورميا اللي يراهنا وقومية كوباد إثيوبيا ما دام قومية كوباد إثيوبيا إيمان تكعدان وضع إثيوبيا وأقول ما تيجي إننا فرصة بينات هاي وأنا ودكي إثيوبيا وقول دربي إثيوبيا يجوشي هلجن كوبادينيا وإلهي مقرنا يساي ونجارسية وفرصة عند عين هذا كار وفرصة قارئة وحنا سببي بانده كريا تاس إن أي دعوة مركي الله هرجليه سبحانه وتعالى لقى هذا استباهي سجي وينا جماعة ودنا حرين توجدين هرمود ككاهي أي أساس تاس نود بيكوتها هاي TPLF والبدن يولع بدن بيكوها ساعة ونقول أسويتي شعبوينا هالظلمن إثيوبيا قال أهان شعب كوجدين مدة دير وأمنا حريته ونقول ذا أسويتي TPLF iyo inta maartay dabadhaqa iyo guumeysiga jecel aad baad u mahadsantahay waxaan dhanka kale isna u gudbaynaa Bashiir Sheekh Cabdullaahi oo ah aqoon-yahan u dhashay Ogaadeniya oo ku sugan dalka Kenya Bashiir ku soo dhawow dooda waad aragtaa adigu aragtidaada sideed u aragtaa kacdoonkaas ay qoomiyadda Oromia wado iyo saameynta uu TPLF ku yeelan karo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan markaa hore u mahad celinayaa meediyaha Qorraxay TV oo runtii qayb libaax leh ka qaata saxaafadda Ogaadeniya iyo maamulka iyo wariyaasha ka shaqeeya intaba inta kadib haddii aan u soo dhaadhaco su'aalaha aad i weydiisay Maxamed waxaan ku horeynayaa su'aasha koobaad ee mudaharaadka ka socda Ethiopia dhexdeeda ay ummadda Oromia ay ku jirto taa haddii aan ka hadlo waxaan u arkaa anigu waxa la yidhi xaqu yani waxa weeyaan markii la caburiyo feeruhu ka dilaacaba leh muddo badan waa dadkan Oromadu waa dad aad u fara badan oo tiradoodu dhowr iyo 40 yani milyan lagu tilmaamo way Ethiopia waxaan ognahay bal inay xataa noqon karaan ba kala badh Ethiopia population-keeda ama dadkeeda inay noqon karaan runtii waynu ognahay ummadaas iyada dadku waxa weeyaan sidiisaba hal mar ma wada kaco dareenka wadaniyeedna markuu ma wada dhaco laakiin waxaad moodaa maanta in qof kasta uu godkiisii ay biyuhu ay ugu galeen macal quraansadii yani xayawaanka ahayd xataa ay xamili weyday dhibaatada uu wadanka ku hayo xukunkani BRF ee ay TPLF hogaaminayso
sidaa daraaddeed runtii maanta waxaad moodaa Oromia in ay waxa weeyaan yani kacdoon aan ka soo noqosho lahayn oo ay rabto inay wixii kaga dhiman maaha kaga dhinto wixii kaga baabaya ku rintay horay bay yani waxa weeyaan loo baabi'iyey loo dhibaateeyey hadda laasigu dambeeyey sidii yani Gambeella oo kale in dhulka laga raro baahida ay taagni nin hadda gurigiisa loogu yimid oo guriga ka guuleeyay iska bax wax u dambeeyay ma jiro halkaas maanta dadka Oromia ay marayaan maanta waxay qaateen inay macna ka hoos baxaan gumeysiga kana xuruubaan waxaad la moodaa maanta inay runtii marka yani kacdoonka habka uu socdo iyo sida loo soo abaabulay inuusan hayn kacdoon iska kacay kacdoon abaabulan oo waliba yani inuu natiijo yani kama dambaysta inay gaaraan dad ku talagashan waayahay inta waxaan kaga gudbahayaa marka su'aasha koobaad jawaabteedii haddii aan maxamed u gudbo su'aasha labaad oo bal saameynta uu ku yeelan karo TPLF runtii TPLF waxa weeyaan maanta waxaad moodaa yani in waxa weeye la fahmay yani bariga hore waxaa la moodi jiray xayla salaasa waxaa la dhihi jiray bariga askartiisii baa waxay dhihi jireen baa layidhi waxa weeyaan haddii aad damcdo inaad gunno siiso xayla salaasa ay arkaan horta TPLF heerkii oo kale bay gaadhay iyaga oo yani aad yani boqolkiiba wax yar ka oo lagu tilmaamo wax 2 milyan iyo waliba waxaanu 3 milyan ma dhaxyo 2 milyan yaa Allah inuu ku gaadhay in kale TPLF dadkeeda populationkeeda haddana sidaas ay tahay yani waxa weeyaan waxaa jira wax yani maskax gumeysi leedahay maskaxdii ka qabsadeen ummadda hadda se waxaad moodaa maanta runtii TPLF yani waad ogtihiin ganacsatadeedii iyo ciidankeedii sirdoonkeedii in Oromia lagu leeyahay oo xataa ugu dambeysay yani waxa weeyaan Azab Zanawi inay waxa weeyaan baqan aflabadii ay cabaadsi baqasho xataa aan sabayni ka baqanayaan maanta ayaan ognahay oo ay waxaan hantidoodii iyo kala baxayaan waxaad moodaa marka maanta in TPLF yani lagu yani duwaar yani ummadii inay ku ciiday baad moodaa dhan walba ay kaga ciiday oo hadda kaliya tada maaha waxa ku ciiday Oromo kaliya wadada Axmaaro iyaduna goosahlisanaysa yani oo miciyaha lisanaysa bay iyaduna kacdo maanta waxaad moodaa marka deero dabadii gali macnaha inay maanta ay ku jirto oo maanta ay fashilan tahay lana ogaaday tabarteeda iyo waxa ay tahay aad baad u mahadsan tahay waxaan u gudbaynaa maxamed aadan oo isna ku sugan magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia ee ku soo dhawow aragtidaada adigu naaseed u aragtaa mudane aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa fursadda qaaliga ah ee la siisay dhammaan warbaahinta Qorraxay Media shaqaalaheeda waan bogaadinayaa bogaadin kadib su-aashayda aan u dhaxdhaxo su-aalaha la weydiiyey su-aasha koobaad ah sideed u aragtaa kacdoonka Oromia waxaan u arkaa inuu yahay kacdoonkii dhammaadkii jabhadda TPLF iyo soo afjaridii isticmaalka inta badan haystay qowmiyadaha kala duwan ee ku nool meesha loo yaqaano Ethiopia ama khaasatan Abyssinia qowmiyadda Oromia kacdoonkan ay samaysay mid hore loogu baahnaa buu ahaa laakiin haddii ilaahay soo maanta waxaan leeyahay qowmiyadda Oromia kacdoonkiina sii labanlaaba si aad u gaadhaan hadafkiina kama dambaysta ee ah inaad ku guulaysataan inaad iska dulqaadaan jabhadda TPLF ee tabarta daran inta badanna kusoo amarku taaglenaysay Ethiopia dhammaan qowmiyadda Oromia waxay ognaanay qowmiyadda ugu fara badan ee Ethiopia waxa loo yaqaano lagu gumaysto hadday taas kacdayna Ethiopia dambe sii waa soconaysaa cid Oromia maxaa maamushay ma jirto marka taas aragtideeda waxa weeye mar hadday Oromia kacday oo ay kacdoonka sameeyeen inay Ethiopia dambe oo jirtaa aan jiri doonin aad baad u mahadsan tahay maxamed waxaan u gudbaynaa abwaan gurmad qoran in abwaan ku soo dhawow aragtidaada sideed u aragtaa kacdoonka ka socda deegaanada Oromia ee ay qowmiyadda Oromia wado saameyn intee leegse ayuu ku yeelan karaa xukuumadda TPLF bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan u mahadcelinayaa bahda Qorraxay Media ama Qorraxay TV in badan la soo taagnayd saxaafadda ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteedba gaar ahaan Soomaalida ogaadeen ayaga ma hadda iska leh jaaniskana ayagana siyoon mahadcelinayaa su'aalaha aad weydiisay maxamed haddii aan ka jawaabo su'aasha ugu horeysa kacdoonka ka jira waddanka Ethiopia sida aan u arko
waxa weeyaan waa kacdoonkii ugu ballaarnaa ee maanta Ethiopia ka dhaca sanadadan hadda ma garanaysaa ilaa hadda ma garanaysaa 10 sano 20 sano aan ka dhicin kacdoon noocan oo kala qomiyadda ugu badnayd ee Oromia waad aragtaa ma garanaysaa kacdoonka ay samaysay waagi ay Ethiopia ay maraysay 57 45 qomiyadda Oromada مع الإيرتريا صدم بقى هيد مقرنايس هاي الصومالية مركز لقوا طريقي أنت كله صدم بقى إسلاء هاي حتى إثيوبيا بقول كيبا سجاشن يدور أما مقرنايس سجاشن يسجل أي مرة يسوع ترى هذا حتى وقرن كرتها مركز أوروميا قوة إلى هذا بمقرنايس إثيوبيا أي وجه تحاليس أنا يبقرطه خارك وصارنت هاي هدي أنا بتبادلين سيدان قريب وقاعد شيء لما كره قلبت كل هذا مرة الباب إثيوبيا كعدونا ذا كتم بيان أو كعيان دولة يفهم ويان أم حكومة مركز يفهم ويان وحنا أركان أي إثيوبيا قرك وصارن تهاي إنه ببرت. كلامات هذا أول صنع قضاء سامين تأكل يلنا يسوي تي بي إل إف هذا تهاي وحويان وهالمليون يبرد بالقول حسابه هالمليون يبرد إنه ماذا إذا لو مقرنا يساوي بقول مليون إن أي جميسته مرك هربا خطر تهاي لهي هذا سه waxaan u arkaa saameyn aad u ballaaran inay ku yeelanayso TPLF dambe inaan la arkaynin waliba waxa weeyaan dhibaatada ay geysatay iyo nacaybshaha ay abuuratay in dib loo warsan doono TPLF dambe wax sheegi aan la arkin saameyntaas ay ku yeelanaysaa halis bayna ku jiraan haddayna hadda ma garanaysaa ayn reer galbeedku daba qabanin aad baad abwaan gurmad qaran u mahadsan tahay waxaan u gudbaynaa Cabdulqaadir Dhiqle oo isna ku sugan dalka Saudi Arabia aragtidaada seed u aragtaa kacdoonkaas ka socda deegaamada Oromia ama dhulka Oromia ee ay shacabka Oromia wadaan saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa xukuumadda TPLF waad mahadsan tahay mudane maxamed labada su'aalaha aad weydiisay boqolkiiba boqol baan kugu mahadcelinaynaa waa fikir aad u wanaagsan inaan fikirkeena ururno ka jawaabno wax fiican weeye bacda salaan warbaahinta qorraxay boqolkiiba boqol waan mahadcelinaynaa waana salaamaynaa salaanta islaamkan ku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyada iyo ummadda ay ka turjumaysa dhammaantood haddii aan usoo dhaadhaco usoo dago su-aalaha la weydiistay qodobka koobaad wuxuu ahaa kacdoonka Oromia muxuu ka bedeli karaa dowladdan guunka ah ee Abasiiniya hadba jabhadi horboodo TPLF u dambeysayna Allah ka dhigay waxaan aaminsanahay fikirkayga haddii aan kusoo koobo wax weyn buu kacdoon ka bedeli karaa taris walba marbuu waqtigiisu dhammaadaa marka uu waqtigiisu dhammaanayana rabbi subxaanahu wa tacaala sabab buu ku kiciyaa oo sabab uga dhigaa waxaan ognahay qowmiyadda Oromia in ay tahay qowmiyadaha Ethiopia oo dhan ay gumaysato shucuubta Ethiopia ay gumaysato in ay tahay qowmiyadda ugu faraha badan ee ugu tirada badan markasta markii u horeysay iyo markii u dambeysay bana dadka lagu laayo ee lagu gumaysto ee loo adeegsado uguna bahdilaadka badan inay ahaayeen ee xaqoodu inta badan maqnaa marka waxa la oran karaa si ay xaqoodu u helaan buu Ilaahay Qaadir Raxmaanka ku kiciyay waana markii u dambeysay juqraafiyada iyo waxaan ku dhaatay rabbi xugma nimankan saynisiyada iyo aqoon-yahanada adduunka muqda adduunka la yiraahdo dadkan aqoonta leh waxa weeye dadka iyaga yihiin hore bay uga faalloodeen in ay ka mid tahay Ethiopia dawladaha yar yar sababo badan korkii la eego jabhadnimada haysata tira yaraanta dadka haysta dadka ay inay wax sii haystaan adka u dhiban tahay inay tahay hore baa la inoogu sheegay kacdoon badanna uu ku kacay Oromia hadday kacday laakiin jabhadeedu in badan bay shaqeynaysay ogaadeeya baa jirta oo iyaduna in badan ka garab dagaalamaysay marka way bedeli kartaa wayna u dhamaatay sidaan aaminsanahay insha Allah ta'ala Ethiopia way u dhamaatay dadka shacabka ay gumaysatan xaqoodii way helayaan nin walba halkiisu aad baad u mahadsan tahay waxaan u gudbaynaa Xasan Cabdullaahi Daahir oo isna ku sugan Ifo dalka Kenya Xasan ku soo dhawow doodeenan maanta sideed u aragtaa saameynta uu ku yeelan karo kacdoonka ka socda deegaanada Oromia ee ay qowmiyadda Oromia wado xukuumadda TPLF waxaan marka hore u mahadcelinayaa warbaahinta Qorraxay Media khaasatan Qorraxay Web TV marka labaad haddaan ka jawaabo mudane maxamed su-aashaadii weydiisay
oo ah kacdoonka oromiya muxuu ku yeelan karaa etoobiya. wuxuu ku yeelan karaa etoobiya saameyn aad iyo aad u culus keenina karta etoobiya oo markii horeba ahayd wax la isku soo dhoobdhoobay oo waxba ka jirin inay kala dhaqaaqdo. xisbiga TPLF saameynta ay ku yeelan karta haddaad weydiisayna waxay ku yeelan kartaa inay talada waddankan la isku dhoobdhoobay inay gacantooda ka baxdo TPLF gorgortana la geliyo TPLF waana taas ta keenaysa waana arrinta dhibka ku ah Ethiopia maanta oo markeedii horeba dhoobdhoob ah. aad baad u mahadsan tahay waxaan dhanka kale u gudbaynaa liban soo dhawow sideed u aragtaa kacdoonkaas muxuuse saameyn ku yeelan karaa baad isdhihi kartaa xukuumadda TPLF ee ay Tigreegu hormuudka u tahay. calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. intaa kadib waxaan marka koobaad u mahadcelinayaa warbaahinta Qoraxay Web TV. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa guud ahaan wariyayaasha Qoraxay Media ee jooga dhammaan daafaha caalamka. intaa kadib haddii aan mudane maxamed ku soo dhawaado su-aashaada ku saabsan kacdoonka Ethiopia aragtida aniga iga muuqata wuxuu noqon karaa kii ay Ethiopia ku burburi lahayd. Ethiopia oo ah qoomiyado fara badan oo magacan lagu qasbahay ay ku burburi lahayd ee ay ku kala tegi lahayd baan u arkaa. mudane maxamed su-aasha labaad haddii aan ku soo dhawaado saameynta uu ku yeelan kara kacdoonkan xisbiga TPLF waxaan u arkaa midkii talada ay gacanta ku hayaan ee shacabka dulman ay ku guumeysanayaan ee guud ahaan Ethiopia tay gacantooda kaga bixi lahayd kuna wareegi lahayd ummadda xaqdoonka ah ee qoomiyadaha kale ah. aad baad u mahadsan tahay. ugu dambeyn daawadayaal cabdulqaadir maxamed oo ku magac dheer cabdigacan ku soo dhawow aragtidaada oo isagana uu ku sugan yahay dalka Saudi Arabia sideed u aragtaa saameynta uu ku yeelan karo xukuumadda TPLF kacdoonka ay wado qoomiyadda Oromiya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaal maxamed oo su-aashan aad weydiisay anigu oo ka faa'iideysan haddii aan ka jawaabo aragtidayda ku aadan kacdoonka Oromiya waxaa la odhan karaa waa kacdoon shacab caddaynna u ah shucuubaha dulman ee ku hoos jira gumaysiga Ethiopia sida ay uga gelgisheen gumaysiga inta badan soo daashay. waxaana la odhan karaa waa ciribtirkii jabhadda TPLF nihayadii ugu dambeysay. shacabka Oromiya waxaa loo dardaarmaya xaqoodii inta badan maqnaa haddii ay maanta ku baraarugeen oy go'aansadeen inay ka hoos baxaan gumaysiga Ethiopia inay sii laabaan kacdoonka ay wadaan maanta oy ka faa'iidaystaan fursaddaa lagu wiiqayo TPLF waxaa hubaala inayna ka talinaynin danaha ummadda ku hoos dulman. aad baad u mahadsan tahay. dhammaantiin waad wada mahadsan tihiin qodobkaas sida fiican ee faahfaahsan ee uu qof waliba u sharxay. waxaan filaynaa in ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan daawadayaasha halkan idinka daawanaya. gunaanadkii ayaan ku jiraa doodeenna. waxaan doonaynaa bal inaan su-aashii ugu dambeysay aan idin weydiino annagoo marka hore weydiinayna cabdulaahi bashiir. cabdulaahi soo dhawow maxaad ugu baaqi lahayd shacabka Soomaalida Ogaadeniya ee ka daawanaya Qoraxay Web TV. waad mahadsan tahay mudane maxamed. su-aashaada saddexaad haddii aan u gudbo waxaan kaga jawaabi lahaa aan isku dayo shacabka Soomaalida reer Ogaadeniya ee runtii aad iyo aad halgamaaga u ah in badanna soo halgamayay. waxaan is leeyahay mar walba fursad baa taagan. hadda fursadda taagan waxaan dhihi lahaa shacabka reer Ogaadeniya kacdoonka ka jira guud ahaan Ethiopia wuxuu nagu yeelan karaa saameyn halgankeena saameyn buu ku yeelan karaa haddaan ka faa'iideysano. marka waxaan fari lahaa guud ahaan shacabka geesiga in ay ka faa'iideystaan fursaddan la taageero kacdoonkaas Ethiopia ka jira guud ahaan sidii aan waddankeena Ethiopia kaga soo dhacsan lahayna aan samayno kacdoonkana in aan gacan weyn ka geysano ayaa shacabka reer Ogaadeniya falaya. waad mahadsantihiin. aad baad u mahadsan tahay. sidoo kale
sheekh mustafe khaliif maxaad ugu baaqi lahayd shacabka ogaadeenaya ee kaa daawanaya qoraxay web t v shacabka reer ogaadeenaya waxaan ugu baaqahayaa in ay ka faa'iidaystaan fursadda Ethiopia waa u dhamaatay fursad aan weligood soo marin baa maanta soo martay in ay halganka garab istaagaan in ay shacabka reer Oromia ku daydaan in ay shacabka Gambeelaha ku daydaan in ay halgankooda u heeliyaan in ay maanta calankii waa suran yahay ee Ethiopia way dhabar jabtay inay madaxa ka sii garaacaan oo ay qowrac labada dhagood ugu simaan waana fursad aysan maaragtay hadda ka hor 30 sano ee halganku soo socday aysan marin ma sha Allah weeyaan ilaahay bay taa xaqiisa ka ahaatay shacabka geesiga reer ogaadeenaya waxaan ugu baaqahayaa meel kasta ay joogaan in halganka ogaadeenaya iyo mudaharaadyada iyo dardargelinta iyo abaabulada dal iyo dibadda xoojiyo Ethiopia meel looga soo wada jeedsado cadawii Ethiopia ma cadawii ogaadeenaya Ethiopia ah maanta way u dhamaatay TPLF way u dhamaatay ma sii jiri doonto hadda maanta kuwaas waad arkaysaan dhafoorxmadooda iyo calaacalkooda iyo kadeedka haysta maanta cabdiile iyo kuwa ducfi oo daciif ay wax ka deehayaan dadaba qoodhay wax ka deehayaan maadaama shacabka reer ogaadeenaya ay maaragtay ay halka xaaladooda iyo himladooda gaadhay calankooda iyo xorriyadoodii way gaadheen ha ku naaloodaan ha sii suraan ha ku dhabar adaygaan maaragtay gowsaha ha ku aad baad u mahadsan tahay Bashiir maxaad ugu baaqi lahayd shacabka ogaadeenaya ee ku daawanaya ummadda reer ogaadeenaya baaq baan u jeedinaya baaqan jeedinaya wuxuu yahay kolkii hore inaga ummadda reer ogaadeenaya yani markii hore waxaad moodaysay halganku macnaha inaga yani waxa weyn Ethiopia inaynu dagaalamayno alxamdulillah rabbil caalamiin horta maanta waxaynu fahanay siyaasadda Ethiopia lagula dagaalami karo horta waxaynu ognahay hadda Tigray hadda waxaynu ognahay iyaga iyo yani Eritrea waxa weyn Ethiopia iyagoo abi dagaalamayno iyagoo macnaha Ethiopia markaa leh iyagoo halgamay waxa weyn kadibna wata Eritrea way xorowday inaan maanta ummadihii reer Oromia Gambeela Sidamo يعني أنت ما أنت إسبهايسنو إن أنا بس كشيء على الحكم كتور كده نقول بحقوق ذي هالشو يا أرت ما أنت تعيت السياسة ده يعني أهبة وحوين يعني ما أنت وجهر مرة يعني بك هيدا أو ما أنت إسبهايسي إثيوبيا إنه وضعنا إنه جامين إنه أورميا أنا واكن وايك عضي ويظهر ما تقنا وحوين ما أنت وحوين جودي هي بيوحي قبل ذي كعضون ما أنت اللي سوبر هجومي مركز ضمن هذا كعضون هالكي أنت كده وحن مضى وباقي يا خير وقاعدين dal iyo dibad meesha jiro maanta fursad baan haysanaa inaan ka faa'iidsano fursadda maanta aynu haysanay dahabiga ah maanta waxa weeyaan wadankeeni Ethiopia way burburtay xaqiiqdii way burburtay Ethiopia way burburtay xuduud sayna wadankeenu qabsan lahayn aynu xuduudeena u xiran lahayn aynu diyaar garowno dal iyo dibad umad saasan u baaqaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waan idin mahadcelinayaa media qorraxay aad baad u mahadsan tahay maxamed aadan ku soo dhawow seed u aragtaa maxaad ugu baaqi lahayd shacabka ogaadeenaya ee ku daawanaya shacabna Soomaaliya ogaadeen waxaan leeyahay khaasatan kuwa gudaha jooga war dagaalamo oo garab istaaga jabada wadada hore ogaadeen ku garab istaaga kacdoon shacab kacdoon dadweyne yeenan dayic fursad aynu haysanaa aynu sugeynay muddo aad u dheer khaasatan intii aan la dagaalamay Ethiopia ee halkan hogaamisay jabada oo ayna leh waxa فرصتي أقول لهم سنة راديني ما طوي مهنا كو واحد راديني توبيوس اللي قال هو 6 مليون وإنه هرتاجنين وإنه غير له هرتاجنين ولا دعالمين واحد نروح للقرب مركا وادن ما حما ينقطها مركا القرب هلاي إنه الخفة إذا يسوي إنه وإنه دعال كين لا يبوينه خاصة تلك شعب كا شباب دعال كين يجي بكم بيسا أما دعال هالنقطة أما ورفافين هالنقطة أما السياسة الدبلوماسية هالنقطة لكن كانت الشعب واحد بدأنا حقها وصل على وردت هالمرة بدتها هالكلمة اللي ما لها أنا وتاجتي وحنا الله هاي إذا كوصلنا برادين بدنا نسود ذلك بقول صار بقت خوف عن نغني شعب أورميا يهوش كتشلو وإن تطالب من الشعب يهان يوم الآن الله تمادان سيادرته شعب آدي أبي ما سيهاي تبدأ يجودبه أنا كهرب أنا كقيب قادم كعبان ككتشل إثيوبيا وإحنا مثلاً نوفر أقولنا هاي فريه هذين النهاية وحقين بكرة اللي نوجبها هي حين كنا تاجنا اللي نوجبها هي أنا استبرع عنه وشعب وقعه وكعبان السمايو ودجال دجالمه وأيوه
intii dad xumayn jirtay oo dhan waa laynagu samaynayaa mar haddii intii lagugu samaynayana oo lagu dilayo oo lagu dhacayo waxaan aaminsanahay in haddaad toos u dagaalanto iyo haddaad aada cabsato inaad kolleyba dilkiiyo dhiciya kuu soconayaan aada iyo aad baad umahadsantihiin waan salaamayaa shacbiga qoraxi miidiyana mar labaad baan u mahad celinayaa waxaan leeyahay halganka meeshaad kaga jirtaan sii labanlaab oo sii laba jibaara asalaamu calaykum abwaan gurmed kusoo dhawow maxaad ugu baaqi lahayd shacabka ogaadeynaya ee ku daawanaya waxaan ugu baaqayaa ummadda muslimiinta ee meel walba jooga ummadda soomaaliyeed gaar ahaan soomaalida ogaadeenya halgan bayna ku jiraa etoobiyana waad aragtaan maanta ma garanaysaa kacdoonada ka socda iyo burburka ay qarka u saaran tahay innaga arrimaheena dibadda arrimaheena bulshada iyo arrimaheena gudaha markaad eegtaana waad aragtaan in halgankeena mar walba kor usii kacayo waxaan ina oran lahaa waad dadaasheen wax badan baadna qabateen waad usoo samirteen haddana aan usii samiro dadaalkana aan sii saddex laabno oo nin walbaba hal kaalinta uu joogo iyo meesha uu ku sugan yahay inuu halganka sii saddex laabo ayaa looga baahan yahay in aan iska xoreyno gumaysigan guunka ee in badan ma garanaysaa dusha naga saara kana faa'iidaysano jaanisyada maanta taagan iyo kacdoonada ka jira guud ahaanba Ethiopia waxaan ku soo gunaanadi lahaa war aan dadaalo aan u samiro in badan baynu soo halganay wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh cabdulqaadir dhaqle kusoo dhawow maxaad ugu baaqi lahayd shacabka ogaadeynaya ee ku daawanaya waxaan ugu baaqayaa warimayow waad guulaysateen waana dagaalanteen heeryadii iyo gudnimadiina waad iska dulqaateen waanad ka adkaateen cadowgii isaga oo cid walba wata gaal iyo muslimba baawarka noocu dooniba maxaad adigiibu ku wataa qayb ka mid waad ka guulaysateen taasi waan ku bishaaraynaya waa bishaaro talabaad baaqitaanka waxaan leeyahay niman yahuna waad guulaysateen Ethiopia si fiican baad uga guulaysateen halkaa kaga haya wax yar faa'iideyn haday wax yar oo weliba khaasatan shacabka waan kala qaadaya war nimanka wadeegsanayo shacabka iyo jabada wadaniga xoreynta ogaadeeyay idinka idin dhimanayaane idinka ayaa la idin xoreynayaa war waqtigii uu dhamaaday wax dambe oo si eegataan male inta la iga gaarsiiyay nimanka heeryada gumaysigu saaran yahay war waxaad eegataan male waa nacasnimo waxa dambe si eegataan way dhamaatay war dadkiina ka mid noqda oo khaatimo xumo waqtigoona idin kaga dhicin shacabkana waxaan leenahay waad la jiraanaw dal iyo dibadba jabhadiina way dhimanaysaa shacabkii dibadda ahaana way la daba taagan yihiin dacamkii shacabkii gudaha ahaayo war idinkuna waxaan idin socdo oo niman iyo gacmo si bay geed ku goyn karaan waad soo dadaasheen dadaal barakallahu fiikum waan idin ducaynayaa assalaamu calaykum warahmatullahi aad baad umahadsan tahay liban miir kusoo dhawow maxaad ugu baaqi lahayd shacabka ogaadeynaya ee ku daawanaya waxaan ugu baaqi lahaa inay ka faa'iidaystaan fursadan qaaliga ah iyo kacdoonadan Ethiopia ka jira oo ay kaga faa'iidaystaan barnaamij siyaasi iyo mid xoog iyo quwad ah haddii ay awoodaan mar walbana fursadu hal mar bay albaabka soo garaacdaa halka mar ay albaabka soo garaacdo waxaa wanaagsan inay siday tahay looga faa'iidaysto waxaan dhihi lahaa marka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya iyo madaxdeeda u sarreysa ha u soo dejiyaan barnaamijyo oo shacabka reer ogaadeynaya ay kaga faa'iidaysanayaan fursadahaas Ethiopia ka dhashay ee kacdoonada ah ee sida hagar la'aanta qoomiyado badan ay uga qayb qaadanayaan oo ay kow ka yihiin Oromia aad iyo aad u mahadsan tahay qoraxay web TV assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ugu dambayn cabdulqaadir maxamed oo ku magac dheer cabdigacan kusoo dhawow maxaad ugu baaqi lahayd shacabka ogaadeynaya ee ku daawanaya shacabka Soomaalida ogaadeynaya waxa aan kula dardaarmayaa on leen waad aragteen gumaysigu heerka uu ina gaarsiiyey oo la socotaan ummadaha bini'aadmiga ee adduunyada ku nool dad baa iyagu oo dheregsan xornimo raadiya innagii oo gaajaysan oo gumaysi ina haysto oo jahli ah oo tacliintii iyo caafimaadkii iyo noloshii asaasiga ahayd lanaga xidhay
inaynu go-aansanno inaynu gumaysi ka hoos noolaan waa nasiib darray taadaga waxaan leeyahay shacabka soomaalida ogaadeen adkaysigiinni faraha badnaa dulqaadkiinni halgankii aad garab taagnaydeen inaad sii laban laabtaan ood kacdoon shacab aad ka samaysaan gudaha ogaadeen si aad uga hoos tartaan gumaysiganina daashay aad iyo aad baad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi aad baad u mahadsantihiin daawadayaal doodeenii maanta intaas ayay ku eg tahay waxaa doodan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed ibraahim inta aan dib dambe u kulmayno waa bahda qoraxay media oo isku duuban oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu